Ku soo dhawow Alasic dib loo soo koobay. Maanta waxaan doonayaa inaan sharaxo filim is-ifi ah oo la yiraahdo Kobin Fefer 2002 bilowgii filimka. Nin ayaa dhex socda kaynta wuxuuna ku dul yimid ay uu rumaysan yahay inuu hurdayo. Marka uu ayga kor u soo qaado oo dhan ayaa dhiigu ku soo dhacaya wejigiisa, waxaana uu arkay in aygu hilibkiisu qudhunsan yahay, taasi oo ka dhigan in uu jidhkiisu qudhuntay fayras kasta ama cudur kasta. Dhanka kale, 5 saaxiibo ah oo kuleej ah ayaa baabuur ku dhex wata miyiga Alabama iyagoo ku sii socda kaynta sababtoo ah waxay kireeyeen qol kaynta dhexdeeda. Inta ay jidka ku sii jiraan, waxa ay istaagaan dukaanka maxalliga ah ee ku habboon cuntada. Markii ay baabuurka ka soo degeen, waxay arkeen ilmo yar oo dukaanka hortiisa jooga. Markii Bawlos gacan qaaday isaga, wiilkaas yar ayaa Bawlos gacanta ka qaniinay. Markaasaa waxaa yimid maareeyaha bakhaarka oo ah aabbaha dhalay wiilkan yar. Aad buu uga cadhooday wiilkiisa, wuxuuna u sheegay in wiilkaygu aanu la mid ahayn carruurta kale ee iga cafi taas. Kadib maareeyuhu wuxuu u sheegay Bawlos inuu si sax ah u dhaqo gacmaha. Halkaas. Dhanka kale, waxaa jira nin kale oo maqlay dariiqa dadkan uga digaya inay ka taxadaraan kaynta sababtoo ah dadku waxay wareegayaan oo ay qabaan cudurka. Markay yimaadaan qolka Karen waxay aragtay inaysan jirin wax shabakad ama calaamad ah, inay aad u xanaaqsan tahay sababtoo ah ma aysan gelin wax sawir ah, ma ciyaari karto wax ciyaar ah. Intaa kadib, Paul iyo Karen ayaa ka soo baxay qolkii oo waxay u tageen inay ku dabaashaan badda dhexdeeda. Halka Bert uu aadayo ugaarsiga dabagaalaha kaynta dhexdeeda. Waxa uu si lama filaan ah u toogtay ninkii helay eyga qudhuntay bilowgii filimka. Waqtigan, ninka wejigiisu aad buu u qudhmay. Bert aad buu uga baqayaa inkastoo ninku ka codsado caawimo, laakiin Bert ayaa u diiday inuu u soo dhowaado, wuxuuna ugu hanjabay inuu dili doono. Kadibna halkaas ayuu ka cararay. Ninkii cudurka qaba ayaa sii waday inuu caawiyo Bert. Cidna uma sheegin arrinkaas oo wuxuu ku noqday qolkiisii. Fiidkaas, 5 carruur ah waxay dhisaan dabdab oo ay wadaagaan sheekooyin ruuxaan ah midba midka kale. Waxay isla markiiba la kulmaan ilmo kuleej oo maxalli ah oo lagu magacaabo Grimkaas oo ula soo xiriiray eygiisa. Inkasta uu u dhaqmo wax yar oo qarsoodi ah, waxay u oggolaadaan inuu ku biiro marka uu siiyo cabitaan. Si kastaba ha ahaatee, mar alla markii uu roobku da'o, wuu baxaa si uu u daryeesho qalabkiisa kaamka. Kooxduna waxay dib ugu noqotaa guriga. Habeen dambe waxay maqleen garaaca albaabka. Markay albaabka ka fureen, waxay ogaadeen inuu yahay ninkii buka ee Bert hore u toogtay. Wuxuu weydiistay in la caawiyo oo uu dhaho, jidhkaygu wuu gubanayaa oo waxaan u baahanahay dhakhtar. Markaas ayay ishiisu ku dhacday Bert oo uu u sheegay in Bert uu toogtay, laakiin intuusan wax kale odhan Bert ayaa albaabka xidhay. Kadibna wuxuu arkay nin cudurka qaba oo gaadhigoodii qaatay. Bert ayaa soo qaatay qorigiisii oo dadkii intiisii kale la soo baxay oo u heegay in uu ka dego baabuurka. Bert waxa uu toogtay taayirkii gaadhiga. Laakiin ninka cudurka qaba ayaa dhiiga ku matagaya dhammaan muraayadaha iyo fadhiyada baabuurka. Kadib markii ninku ka soo baxay baabuurka, Bawlos wuxuu iftiimiyey ninka cudurka qaba, wuxuu dib ugu orday kaynta halkaas uu ku dhintay harada. Subaxdii xigtay, waxaan aragnaa Bert iyo Jeff oo ka soo degaya xeebta harada si ay u helaan cid caawimo ah. Kadib waxay maqleen qof jidka oo halkaas aaday. Waxay heleen naag goynaysa doofaarka. Jeff ayaa u sheegay in aanu halkan uga baahanahay makaanig sababtoo ah gaadhigayagii wuu busbeelay. Naagtan ayaa u sheegtay in aad magaalada u aadayso taas. Kadib waxay tidhi aan tagno gurigayga, waxaan leeyahay raadiyow, waxaan wici karnaa Ricky. Baabuur buu wataa, wuu ku caawinayaa. Labadooduba aad bay ugu farxeen markay maqleen oo waxay aadeen gurigeedii. Halkan ayay sawir ku tusisay wayna weydiisay. Waa isla ninkii ay dab qabadsiiyeen. Isla markiiba waxay ogaadeen in naagtu ay qaraabo yihiin.
Labaduba aad bay uga baqeen inay tan arkaan oo si degdeg ah guriga uga baxaan. Goobta xigta waxaan ku aragnaa sarkaal booliis ah oo taagan bannaanka qolka. Ku xigeen dhalinyaro ah oo magaciisa la odhan jiray Winston Olsen. Bawlos ayaa markaas u sheegay in habeennimadii uu na soo weeraray nin cudurka qaba. Markii ay maqashay ayay tidhi, waa inaan wargelin u qoraa arrintan, oo waxaanu aragnaa in sarkaalka bilaysku u dhaqmayay si yaab leh. Dadka si aad u caawiso, kadibna halkaas ayay ka tagtaa. Inta lagu jiro wakhtigan, Karen waxay cabtaa koob biyo ah oo ka mid ah harada uu wasakheeyey ninkii qaba oo bilaabay inuu dareemo xanuun. Sariir ayay seexataa si ay u nasato. Bawlos ayaa markii dambe ogaaday boogo qudhuntay oo ka soo baxay bowdadeeda. Isaga oo taas ka baqaya ayuu qof walba u sheegay. Markii ay halkaas gaadheen in ay aad uga naxeen markii ay arkeen Karen ayaa qof walba weydiisatay gargaar, laakiin Bert ayaa joojiyey dhammaantood oo u sheegay Karen in ay sariirta ku sii jirto, inkasta oo Karen ay aad ugu xun tahay goobta. Daqiiqado si xun ayay u ooynaysay, sababtoo ah xanuun badan baa haya. Bert waxa uu isku dayay in uu qof walba u sharaxo, isaga oo ka baqaya in ay dhowaan sidoo kale ku dhacaan wax kasta oo xanuunsan Karen iyo sidoo kale ninka habeen ka hor. Intaa kadib, dhammaantood waxay bilaabeen inay is-hubiyaan cabsi darteed. Karen ayaa markaa karantiil ku dhex gelisay qalabka bannaanka ku daadsan, si dadka kale aysan u qaadin cudurka. Habeenkii, qof kastaa wuxuu dejiyaa qorshe, kadibna si lama filaan ah ayay u maqleen dhawaaqa eyga. Markay arkaan waxaa taagan ey xaaladiisu aad u xun tahay, wuxuuna isku dayay inuu furo albaabka qolka Karen. Kadib Bert ayaa baxay kan kale si uu u toogto eyga, laakiin eyguu baaba'aa isla markii ay arkaan. Markay albaabka tagaan oo hubiyaan, si xun buu u dhalaalay. Maalintii xigtay, waxay ogaadeen in xaaladda Karen ay si degdeg ah uga sii darayso. Bert wuxuu isku dayay inuu baabuurka kiciyo, halkan Paul iyo Marci waxay ku adkaysteen inay caawiyaan Karen, laakiin isla waqtigaas, Bert wuxuu sidoo kale ogaaday in isaga laftiisa uu ku dhacay fayraska tan. Dadka intiisa kale ayuu ka qarinayaa, laakiin Jeff wuxuu ogaaday in Bert uu isna cudurka qabo. Uu weydiiyey. Markii Bert uu maqlo baabuurka ayuu qaatay oo ka cararay halkaas. Jeff wuxuu u cararay kaynta isagoo wata cabitaanka soo haray, isha keliya ee la isku halayn karo ee cabitaanka. Marci ayaa ku qaylisay isaga oo cararaya, iyadoo ka xanaaqsan inuu ka tagay. Hadda keligiis qolka dhexdiisa, Bawlos wuxuu arkay Marci oo si niyad jab ah sariirteeda ku dul fadhida. Wuu isku dayay inuu u xaqiijiyo, laakiin waxay ku celcelisay inay dhammaantood bukoon doonaan. Si kastaba way sasabtay Bawlos oo waxay bilaabeen inay galmo sameeyaan. Kadib markay dhammeeyeen, Marci waxay ogaatay calaamado guduudan dhabarkeeda ku yaal halkaasoo Bawlos ku qabtay. Dhanka kale, Bert waxa uu u kaxaystay dukaanka ku habboon ee ay kooxdu booqatay, isaga oo ka baryaya cunto. Maareeyaha ayaa arkay xaaladiisa oo fahmay in uu cudurka qabo, sababtoo ah waxa uu muujinayaa calaamadaha sii kordhaya ee caabuqa. Inkastoo Bert uu u sheegay inuu wac dhakhtarka, wuu aqbalay. Tani, inankii yaraa ee qoor casaha ahaa ee kursiga fadhiyey ayaa orday oo mar labaad qaniinay Bert, sidaas ayuuna isu qaadsiiyey. Aabbihii ayaa dibadda u soo baxay oo halkii uu ka caawin lahaa Bert, wuxuu isku dayay inuu dilo. Wuxuu u yeedhay qori si uu u dilo Bert, taas oo cabsi gelisay Bert oo uu qaatay baabuurka oo isku dayay inuu baxsado. Markuu baxo, maareeyuhu wuxuu u sheegay raggiisa in qof kasta oo qolka ku jira uu cudurka qabo, markaa waa inaan u yeerno booliiska oo aan dilno. Wuxuu kaxaystay laba saaxiibadiis ah oo qoor cas, kuwaas oo isku hubeeya qoryo si ay uga daba tagaan Bert si ay u dilaan. Dhanka kale, Marci way qubaysatay oo ooyday. Calaamadaha uu Bawlos ku sameeyey dhabarka waxaa la tusay inay isu beddelayaan nabaro xunxun sida Karen oo kale. Halkan Bawlos waxa uu u soo gudbay dhinaca kaydka deegaanka. Si lama filaan ah ayuu ninkii cudurka qaba u soo weeraray oo ku tuuray biyihii, taas oo ka dhigan in uu weli nool yahay kadib markii la gubay.
laakiin Bawlos hadda wuxuu ku qarqiyey biyihii oo dilay. Dib ugu soo laabashada qolka, Marci ayaa la tusay iyadoo lugaha ku xirtay tuubada qubayska, waxaana la ogaaday inay bilaabayaan inay xumaadaan markii maqaarku bilaabay inuu si xun u sii dilaaco. Bannaanka ayay u carartay oo waxay ku qaylinaysaa caawimo. Halkan eyga cudurka qaba ayaa yimid oo weeraray Marci, taas oo ka dhigaysa inay qayliso. Bawlos wuxuu maqlay qayladeeda oo uu soo gaadhay, oo wuxuu arkay in eygu uu si buuxda u cunay naxariis. Kadibna wuxuu maqlay codka Karen. Waxa uu halkaas ku gaadhay qori oo uu arkay in eygu uu cunayo jidh Karen aan dhaqdhaqaaq lahayn. Si kastaba ha ahaatee, Bawlos waxa uu eygii ku dilay qorigii Bert. Karen oo maqaarkeedu hadda si buuxda u qudhmay, aad bay u nooshahay. Waxay ka bariday Bawlos inuu i dilo, maxaa yeelay xaalkeedu aad buu u xun yahay. Si uu dhibteeda u dhammeeyo, ayuu bud ku dhuftay oo majarafad ku daldalay. Dabadeedna baasir buu ku soo tuuray oo dab qabadsiiyey. Jidhkeedii oo dhanna wuu wada baabi'iyey. Markuu waxaas oo dhan arkay, Bawlos aad buu u murugooday oo ooyey. Dabadeed Bert baa meesha yimid oo u sheegay Bawlos inay u imanayaan inayna dilaan. Intuusan wax kale oo dhan, maamulihii madaxa ayuu ka toogtay. Bawlosna aad buu u cabsaday. Marka uu eego maamulaha iyo asxaabtiisa, waxa uu damcay in uu qori ku toogto, laakiin xabadu kamay soo bixin qoriga. Saaxiibkii maareeyuhu waxa uu yidhi, badbaadada qorigaagu waa shidan yahay. Kadib Bawl ayaa shiday badbaadada qorigiisa oo ku toogtay saddexdoodii. Dhammaantood waxay ku dhinteen meeshaas. Bawl kadib wuxuu dib ugu noqday baabuurkii Bert ee eryanayay oo u kaxaystay magaalada. Markii uu eegay gacmihiisa, wuxuu ogaaday in isagana uu qabo cudurka, taas oo ka jeedisa isaga oo shil galay. Intaa ka bacdi ayuu gaadhigii ka degay. Lugtiisa ayuu ku sii socdaa marka uu gaaro xaflad waddo dhinaceeda ah oo uu dhigayay dhalinta deegaanka oo Winston uu joogo. Waxa uu u sheegay in aad ballan ku qaaday in aad u soo dirayso baabuur gargaar ah, laakiin Winston waxa uu u sheegay in uu isdejiyo. Bawlosna waxa uu mar kale weydiistay caawimo, sida sarkaal booliis ah oo raadiyaha uga digaya Winston, Bawl iyo kooxdiisa, kuwaas oo uu ku dhacay cudur qariib ah iyo in la toogto iyagoo arkaya. Markii uu taas maqlay, Winston waxa uu bastooladii u rogay Bawl oo u sheegay in uu ka fogaado, laakiin Bawl xaggiisa ayaa u soo dhaqaaqay oo damcay in uu Winston u sheego in wax walba ay adiga daraadda u dhaceen. Kadib Winston waxa uu u sheegay in aad keynta ka soo qaadan doonto jid gaaban oo u sii jeeda jidka weyn. Laakiin markii uu Bawlos dhex maray keynta, wuxuu ogaaday in Winston uu khiyaaneeyey, sababtoo ah ma jirin waddo uu u maro. Sidaas darteed aad buu u murugooday oo bilaabay oohin. Subaxii xigay, Jeff waxa uu ka soo baxay keyntii uu ku dhuumanayay oo uu dib ugu soo laabtay qolka. Intuu hareeraha eegay isagoo ka naxsan inay saaxiibadii dhinteen arkayna, ayuu u qoslay sidii nin waalan oo kale, indhihiina gacanta ku dhaceen. Wuxuu ogaaday inuu isna cudurka qabo. Dhaqdhaqaaqaas, Winston ayaa madaxa ka toogtay oo dilay. Kadib waxaan mar kale aragnaa Bawlos, kaasoo jidhkiisu qudhun baxayo, maxaa yeelay jidhkiisii keynta ma uu helin. Intaas kadib, boolisku waxay yimaadeen qolkii oo meydadka ka qaaday. Filimku wuxuu ku dhammaanayaa halkan. Mahadsanid daawashadada.